السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Zainab. maanta waxaan doonayaa inaan idin la sheergareeyo cunto yar oo sahlan haddana caafimaad leh. marka waad aragtaan waa pancake mixed weeyaan. waxaan ka sameeyay bahalkan organic porridge kan aad u jeedaan, laakiin organic maaha inuu ahaado 2 malgacadood oo celebration flour ah, chai seeds, maxay iyo flax seeds. okay, marka iyo xabad yogurt in yaro caano ah waan isku daray iyo 1 egg waan isku walaaqay sidan bay soo baxday. marka aan isku sameeyay insha Allah. haddana markii la sameeyay waa tana. marka wuxuu baan doonayaa in ku raahdo caruurta subaxdii waxa u wanaagsan inta cornflakes la siinayo amba kuwa reeriga ah dukaamada laga soo sameeyo waxyaabo badan baa lagu daraa. marka the ideal breakfast insha Allah taala I would say waxaan oran lahaa maaragtay sidan malabka chocolate spread kana la iska yareeyo. this kan waa pure honey weeyaan, in yar oo honey ah iyo khudaartaas. marka honeygaad qaadaysaa markaad sida iniga malabka in yar sida ugu bahalaysid ugu dul daadisid, then fruit. waxaan especially carruurta examska iyo waxa markay galayaan waa inay wax wanaagsan oo healthy ah oo maaragtay caloosha ugu jiro waxoogaa inay maaragtay helaan ayaa wanaagsan oo cunaan subaxdii. marka waxaan kula talin lahaa hooyooyinka iyo insha Allah naftaydaba inaan waxaynu cunno aynu iska ilaalino oo maaragtay cunto healthy ah. subaxdii quraacdu waa muhiim weeyaan. waxaa la leeyahay haddii statistics waxa statistics ku xeleen haddii aan qofku quraac wanaagsan aanu cunin maxay wuu daalayaa. iminka examskii GCSE baa loo sameeyaa waa tantii kalena masha Allah oo si wali samaysanaysa. marka wataasa insha Allah taala caafimaadka healthka cuntada healthka hala ilaaliyo. saan idinku sheegay baashan waxaa ku jira boorash oo isku qasay boorash, chai seeds, flax seeds, xabad beed ah, xabad yogurt ah, in yaro caano ah, baking powder iyo baking soda iyo xabatoon ma ku darin masha Allah. inday leedahay saasi soo baxday absolutely waa very tasty weeyaan. marka maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.